ninkani wuxuu 30 sano waardiye u ahaa qoys maalqabeen ah. wuxuu aad ula yaabanaa sida ay wax uga socdaan aqalka uu ilaalada ka yahay. subax walba wuxuu ganjeelka ama albaabka guriga ka furi jiray ninka uu u shaqeeyo ee ah aabbaha guriga. wuu bariidin jiray, balse wuxuu dareemay in aan salaantiisa dhag loo dhigin. mar walba reerkan xaflada ayay dhigtaan, raashin badan ayaana soo hara dhammaadka xaflad walba. cuntada hartay ayuu u qaadi jiray qoyskiisa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninka uu u shaqaynayay waardiyuhu wuxuu dariishada ama daaqadda ka arkay ninkii waardiyaha uu ahaa oo qashinka ka baaraya cuntadii la soo reebay. sidii caadada ahaydba lama uusan hadlin. balse maalintii xigtay ayuu waardiyihii wuxuu arkay bac ay raashin kala duwan ka buuxaan oo looga ag tegay barta qashinka la dhigo. aad ayuu ugu farxay raashinka freeshka ah ee meesha loo dhigay. isagoon waxba ka fekerin ayuuna bacdii u qaaday qoyskiisa. wixii maalinkaasi ka dambeeyeyna bac raashin iyo qudrad laga soo buuxiyey ayuu halkaas ka qaadan jiray waardiyuhu. cuntadan uu qaadanayo meel ayay ka dabooli jirtay si uu ugu maareeyo nolosha qoyskiisa. hase yeeshee mar qura ayay wax walba isbedeleen, sababtoo ah ninkii uu u shaqayn jiray ayaa si kadis ah u geeriyooday. markaas kadib maalin walba wuxuu waardiyuhu eegi jiray halkii bacdi raashinka loo dhigi jiray, balse muddooyinkanba waxba lama soo dhigo. aad ayuu uga niyad jabay, waayo mushaarkiisu ma aha mid maarayn kara nolosha qoyskiisa. waardiyuhu wuxuu markii dambe go'aansaday inuu reerka ka codsado in mushaarka loo kordhiyo. xaaska ninkii dhintay ayaa iyada oo yaaban una naxariisanaysa, walwalna uu ka muuqda ku tiri, sidee suuragal ku noqotay in aadan horay uga hadlin in laguu kordhiyo mushaarka iyo sababta aad hadda ii weydiinayso. wuxuu isku dayey in si dadban uu uga jawaabo su'aasha, balse ugu dambayn wuxuu sheegay runta oo ahayd in xaajigeeda uu raashinka u dhigi jiray barta qashinka la dhigo meel u dhow. wuxuu intaasi raaciyey in raashinkaas uu ku filnaan jiray nolosha qoyskiisa. haweenayda oo dabacsanaan muujinaysa ayaa ku tiri, hadda markuu xaajigaygu dhintay cuntadii ma heshid soo ma aha. wuxuu ku yiri haa, isagoo intaa raaciyey in xaajiga uu ahaa nin u muuqday qof aan waxba kala jeclayn siiba xaaladayda, balse waxa uu ahaa qof naxariis badan. xaaskii ayaa oohin afka furatay. aad buu u naxay. wuxuuna ku yiri xaaskii, waan ka xumahay, ma ahayn in aan ku weydiisto mushaar kordhin. waxayse ugu jawaabtay maya, ee sabab kale ayaan u oynayaa, taasoo ah waxaad tahay qofkii 7aad oo uu odaygayga raashin siin jiray maalin walba. maalintaasi wixii ka dambeeyeyna raashin dhammaystiran ayaa loo bilaabay. balse markaan looma agdhigi jirin barta qashinka ee wiil reerku ay dhaleen ayaa si toos ah ugu geen jiray gurigiisa. sidii aabbihii oo kale ayaa wiilka markuu waardiyuhu u mahad celiyo kama jawaab celiyo. hase ahaatee maalin maalmaha ka mid ah ayuu si cod dheer ah waardiyihii ugu yiri mahadsanid. wiilkii oo maqlay codka dheer ayaa ku yiri waardiyihii, dhagaha ayaan ka cuslahay sida aabbahay oo kale, ee fadlan waan ka xumahay, ha u arkin in aan si ula kaca ku dhageysanayo. waardiyihii intuu naxay oo uu wuxuu ku hadla garan waayey ayuu si naxariis leh ugu celiyey mar kale mahadsanid in badan. sheekadan waxaan ka baran karnaa 2 arrimood. midda koowaad, mar walba wanaag samee, si lama filaan ah ayaad ku helaysaa abaalmarinteeda. tan labaadna, adigoo aan xaqiiqsan qofka kale wuxuu yahay, ha qaadan go'aan, wuxuu noqon karaa mid qaldan. waa halka ay Soomaalidu ka tiraahdo barasho horteed ha i nicin.